baadigoobkii dhalanteedka. waxaa sidii caadiga ahayd u socda qorshihii uu Mooshe ku imanayay Israa'iil oo ahaa in uu ku biiro ciidanka cirka ee Israa'iil. Mooshe waxa uu gaadhay darajada korneyl duuliye militari ah oo ka tirsan ciidamada cirka ee Israa'iil. dabayaaqadii sanadkii 1973 Mooshe diyaarad uu waday oo nooceedu ahaa Skyhawk ayaa howlgallo sahamin ah loogu diray hawada dalka Suuriya, laakiin duulimaadkiisii koowaadba ciidamada cirka ee dalka Suuriya ayaa ku guulaystay in ay soo ridaan diyaaraddaas. Mooshe shilkan ayaa raq iyo ruux meel uu ku dambeeyey lagu waayey, dalka Suuriyana uu ka gaabsaday in uu sheego waxa uu ka og yahay nolol iyo geeri. warka ay ciidamada Suuriya ka baahiyeen dhacdadani waxa uu ku koobnaa in diyaaraddaas ay qarxiyeen iyada oo gudaha ugu jirta hawada dalkooda. Amiina waxa ay rumaysan kari weyday warkii diyaaraddan, waxa ay gashay xaalad nafsi ah iyo khalkhal u ekaysiiyey qof aan maskax ahaan caafimaad qabin. maalmo uu waaga murugo iyo oohin ugu beriyo uu gabalku ugu dhaco ayaa u kowsaday. markii ay xaaladdeedu ka soo rayn weyday waxaa la geeyey xarun lagu daweeyo xaaladaha nafsiga ah iyo xanuunnada maskaxda oo ku yaalla magaalada Rishon LeZion ayaa caafimaad ahaan loo dhigay. waxaa ku dhacay cudur nafsi ah oo ka xidhay hadalkii, ama aynu nidhaahno shoog si ku meel gaadh ah u aamusiyey. waxa ay jiiftay qol u gaar ah oo xaruntan caafimaad ka tirsan, halkaas oo dhakhaatiirtu ay si gaar ah xaaladdeeda ugu dabiibayeen. markii uu muddo bil iyo badh ah xaalkeedu sidan ahaa, ayaa ay Amiine heshay waxtarkii dawooyinka. waxaa dib ugu furmay hadalkii iyo xusuustii la xidhiidhay waxa dhacay. markiiba waxa ay bilowday muran cusub oo ay ku andacoonayso in ay ka shakisan tahay runnimada warka Suuriya ee sheegaya in diyaaraddaas oo duuliyihii saaran yahay ay qarxiyeen iyaga oo aan ka warramayn geeri iyo nolol halka uu ku dambeeyey duuliyuhu. waxa ay ku dooday in ninkeedii Mooshe uu ahaa duuliye aad u xirfad badan, tababarro heerkoodu sarreeyo oo dhinaca duulimaadyada militariga ahna uu qaatay, sidaa awgeed aan la diidi karin suurtagalnimada in uu ka booday diyaaraddani intii aanay burburin. waxa ay sheegtay in ay qabto dareen ah in uu weli nool yahay, kuna gabanayo dhul beereedyada iyo miyiga u dhexeeya Suuriya iyo Israa'iil ama ku yaalla gudaha Suuriya. waxaa fikraddan u sheegtay mas'uuliyiintii Yuhuudda ee arrintani qusaysay, iyada oo ku doodaysa in Mooshe uu yahay geesi intii karaan aadame ah isbadbaadin og. markii ay ka soo raysay waxaa dib loogu celiyey gurigeeda oo ay ku haysay gabadh kalkaaliso caafimaad ah oo ay dowladdu ku mushaharsiinaysay daryeelka Amiina. habeen iyo maalinba waxa ay ku hamiyi jirtay ninkeeda maqan, waxaana la arki jiray iyada oo isla maqan inta ay isaga ka fikirayso ku hadlaysa erayo cod sare ah oo qof kasta oo u dhowi maqli karo. waxaa 10 jeer sii labalaabantay cadhadii ay horeba ugu qabtay Carabta, oo ay u arkaysay in ay mar walba yihiin kuwa madoobeeya bidhaan kasta oo ka soo ifta mustaqbalkeeda. waxaa soo food saartay quus kale oo ku abuurantay markii ay is aragtay in mar labaad ay ku dhacday god madow iyo in ay beenowday riyadeedii ahayd in ay mar uun Carab ka fogaan doonto. Urdun iyo Usteri ayaa ay uga timi Carab, iyada oo filaysa in ay haatan Israa'iil ka bilaabi doonto nolol xasiloon. laakiin nabarkan aanay ka bogsan karin ee warwarka weyn ku hayay waxa uu ahaa runta ay og tahay ee ah in Mooshe oo la waayaa ay ka dhigantay mustaqbalkeedii oo gabal u dumay. ma ay waayin oo keliya saygeedii ay jeclayd, balse waxaa dumay nolosheedii oo dhan. waxaa wehel u noqday ciil baday in ay marar badan ku hamido aargoosi aanay haddana maskaxdeedu sawiran karayn sida ay u fulin karto iyo halka ay ka bilaabi karto midna. waa ciirsi la'aan cidda ku xeerani ay tahay dad aanay dhaqankooda, caadooyinkooda iyo afkooda midna aqoonin. inkasta oo ay ahayd in ay nafteeda ku canaanato sababta halkaas dhigtay, eersatana Yuhuudiga ay guursatay iyo haddana go'aankeedii ku qasbay in ay u guuraan Israa'iil, sidaas ma ay yeeli jirin ee si badheedh ah ayaa ay eedda waxa ku dhacay oo dhan ugu leexinaysay Carabta. muddo markii laga warlaa Mooshe waxa ay Amiina ka codsatay mas'uuliyiinta Yuhuudda ee arrintani qusaysay in ay u oggolaadaan safar ay ku tagto Beyruut iyo Dimashq, caasimadaha dalalka Lubnaan iyo Suuriya, sida ay u kala horreeyaan si ay u raadgoobto saygeeda, bal in ay geeri iyo nolol mid uun kaga warhesho. Amiina iyada oo sidata baasaboorkeedii cusbaa ee Israa'iiliga ahaa ayaa ay dib ugu noqotay magaaladii Fiyeena ee dalka Usteri. waxa uu ahaa safar ay u oggolaadeen mas'uuliyiinta sirdoonka iyo ammaanka ee Yuhuuddu. Fiyeena waxa ay ugu tagtay qoyskii Mooshe oo aad ugu murugaysan geerida inankooda. dhowr maalmood ayaana ay ku nagaatay si ay qoyska ula wadaagto tacsida. maalmo murugo iyo tacsiyeed oo aad u xanuun badan ayaa ay qoyska la qaadatay ka hor intii aanay dib ula soo bixin baasaboorkeedii asalka ahaa ee Urdun, si uu ugu fududeeyo in ay u dhoofto dalalka Lubnaan iyo Suuriya. waa markii ugu horraysay ee aragto magaalada Beyruut. waxa ay safarkan isku sii barteen gabadh magaceedu ahaa Khadiija Sahraan, oo qudheeduna ku sii jeeday Lubnaan. Khadiija waxa ay ahayd Lubnaaniyad isirkeedu uu Urdun ka soo jeedo.
waxa ay ahayd baayac mushtar meherad ganacsi oo aad u weyn ku leh magaalada Beirut. Khadiija waxa ay Amiina magaalada Beirut uga heshay guri yar oo ku yaala xaafadda Cayn Rumaanah ee magaalada Beirut. xaafadan dadka degan waxa u badnaa Falastiiniyiin, sidaa awgeed waxa ay ahayd goob laga heli karo xogo badan oo la xidhiidha halganka Carabta ee Israa'iil ka dhanka ahaa. gurigaas ayaa ay kireysatay waxa aanay bilowday dadaalkeedii ay ku raadinaysay warar la xidhiidha saygeeda. weliba Beirut oo kaliya war raadinteeda kuma ay koobin ee waxa ay si joogto ah ugu safri jirtay magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya si ay halkaasna uga raadiso warka duuliyihii Yuhuudiga ahaa ee ay wada joogeen. magaalada Beirut oo uu joogitaankeedu u badnaa marka ay firaaqada tahay waxa ay tegi jirtay meherada ganacsiga dharka ee saaxiibadeed Khadiijka ku lahayd magaalada. waxa aanay ka iibsatay dhar aad u badan oo qiimahoodu aad u sarreeyo. muddo ay Amiina joogtay magaalada Beirut waxa ay martay dariiq kasta oo ay filan karaysay in ay ku helayso xog ku saabsan ninkeedii, sida oo kale waxa ay dadaal badan u gashay in ay war ka hesho dadka ku dhaqan magaalada Dimashq oo ay dhowr jeer safarro qarsoodi ah ku tagtay. nasiib darro se dadaalladadeedu waxa ay dhammaantood ku dhammaadeen faramadnaan. waxa aanay aakhirkii gaadhay in ay ku qanacday in Moshe uu dhintay, iyada oo quustaas taagan ayaana ay dib ugu soo socdaashay magaalada Vienna ee caasimadda dalka Ustari. murugo hor leh iyo wehel la'aan ayaa u bilowday waxa ay weyday cid ay xitaa garowshiye uga hesho uurkutaallada ay ku abuurtay geerida u soo hoyatay, marka laga reebo sawirrada Moshe iyo wixii ay hadba u aragto in uu raadkiisii yahay oo ay laabta gashan jirtay. bil ku dhowaad markii ay joogtay Vienna waxa bilowday wejigii labaad ee nolosheeda. dawanka taleefanka qolkeeda yaalay ayaa goor habeen badh ah hurdada ka salaliyey Amiina. haddii ay haabasho dhigta kula haleeshay sameecaddii taleefankana waxaa kaga soo baxay codka nin u sheegtay in uu ka mid yahay mas-uuliyiinta ammaanka ee Israa'iil. bilowgii may garan codkiisa, laakiin markii uu xasuusiyey magaciisa iyo tilmaamihiisa waxa ay garatay in uu ka mid ahaa raggii ay kulmeen, gaar ahaan kuwii muddada ku waaninayay in aanay u safrin Lubnaan iyo dhulka Carabta. waxa uu si guud uga waraystay xaaladdeeda iyo xaaladda qoyska Moshe ka dhashay. intii aanu nabadgeliyeyna waxa uu u sheegay in ay u iman doonaan 3 mas-uul oo ay Israa'iil u soo dirtay. maalintii xigtayna waxa Amiina goor barqo ah guriga ugu yimi 3 nin oo ay markiiba garatay in ay yihiin saraakiishii taleefanka looga soo sheegay. dhaxalka ay gaarka u heshay iyo lacag magdhow ah oo ay dowladda Yuhuuddu ka siisay ninkeedii Moshe waxa ay isku noqotay lacag ka badan $500,000 Maraykanka ah. waxa ay sidoo kale ka heshay dowladda Israa'iil guri aad u qurux badan oo ku yaala magaalada Rishon LeZion oo ah magaalada afraad ee ugu weyn Israa'iil. waxa kale oo ay saraakiishani u sheegeen in dowladda Israa'iil ay sugidda amnigeeda qaadayso, sidaa awgeed loo samayn doono ilaalo fiican oo amnigeeda sugta. raggan la kulmay Amiina waxa ay si badheedh ah ugu sheegeen marka ay hawshaas u qabtaan waxa ay tahay abaalcelinta laga rabaa. waxa aanu kaa rabnaa in aad nagala shaqayso danta dalkaaga Israa'iil oo dabcan adigana dantaada qofeed ah, ayaa si kooban loogu sheegay. iyada oo weliba si dadban loogu muujiyey in soo jeedintani ay tahay codsi awoodda amarka oo kale leh oo ay qasab tahay in la fuliyaa. waxa aanu kaa doonaynaa in arrinkan basaasnimada aad si bilaa waabasho ah u aqbasho, ayaa ay saraakiishan Mossad ku yidhaahdeen. marka lagu eego indhaha sirdoonka, Amiina waa macdan qaali ah oo aan lacag lagu qiimayn karin. waa gabadh Carbeed oo dalkeedii iyo dadkeediiba weyday, colaad xooggana u qabta. waxa ay hadda ku jirtaa xaalad nafsi ah oo aad u liidata, waxaana ku xeeran cabsi badan. ma haysato hoy ay og tahay in ay ku badbaadi karto oo aan ahayn Israa'iil. intaas oo dhammi waa sababo ay u aamini karaan in aanay diidayn in ay la shaqayso iyo in ay si hagar la'aan ah uga soo bixi doonto hawsha loo diro. sirdoonka Israa'iil oo lagu yaqaano xirfad aad u sarraysa diyaar uma ay ahayn in uu dayaco fursad kasta oo u sahlaysa in ay Amiina al-Mufti noqoto basaasad u adeegta. 3 nin si ay nafsiyaan u dilaan uguna sii kordhiyaan nacaybka ay u qabtay Carabta waxa ay xasuusiyeen xaaladdeeda nololeed ee ay hadda ku jirto iyo cabsida mustaqbalka ku xeeran. waxa ay geliyeen shucuur ah in maanta cidda ugu necab dunidu ay tahay Carab oo sirdoonkooda oo dhammi ku howlan yihiin sidii ay u dili lahaayeen ama u qafaalan lahaayeen si qarsoodi loogu celiyo Urdun. cidda keliya ee maanta ammaanka iyo nolosha la doonaysaana ay tahay Yuhuudda. waxa ay aad ugu celceliyeen in iyada iyo Carab aanay waxba ka dhaxayn. marka koowaad maaha isku asal oo dabcan iyadu asal ahaan Carab ma aha oo waxa ay ka soo jeedaa qowmiyadda Sharakis. marka labaadna waxa ay u sheegeen in Carabi ay tahay cidda dishay ninkeedii ay jeclayd oo maanta uga baahan in ay u aarto. waxa ay u aragtaa xogtani in ay tahay biyo kama dhibcaan. haddii waxaas oo dhan laga tagana, arrinta runta ah ee ay og tahay waa in ay maanta u baahan tahay cid ay magan u noqoto. cidda keliya ee ay u aragto in kaalintaa buuxin kartaana waa Israa'iil.
aragtida uu qabay sirdoonka yuhuudu ee ahayd in ay ka faa'iidaysan karaan amiina oo sidatay jinsiyadaha urdun ustari iyo israa'iil waxa ay ahayd aragti sax ah hase yeesho ee shakiga ay saraakiisha Mossad ka qabeen in ay ku adkaan doonto in ay ku qanciyaan basaasinimadu waxa uu ahaa shaki aan sii ridnayn amiina uma ay baahnaynba in qorshaha sidaas u dheer loo galo basaas ka dhigisteeda iyo in ay u shaqayso Mossad oo ay ka hor timaado dalkeeda iyo danihiisa oo dhan waayo waxa ay ku jirtaa xaaladda uu qofku ugu nugul yahay in laga faa'iidaysto waxa u dheeraa in hore ay u iibisay diinteedii iyo dalkeedii markaas maba haysato wax intaa ka qaalisan oo ay ku gorgortanto ama iibgeyso markana waxa u sii dheeraa taagdarro quus iyo dayac ay dareemaysay tan iyo bilowgii nolosheeda Yurub amiina may dhowrsan sharaf iyo karaamo iyada ayaa doonisteeda iyo xiise ay u qabto tuurtay dhaqankeedii oo huwatay mid aanay ab iyo isir midna u lahayn waxa ay xagga dambe ka tuurtay diinteedii wadaniyadeedii iyo dhowrsoonaantii dhaqankeedu faray arrimahan oo dhammi waxa ay saddexdii sarkaal ee loo soo diray u fududeeyeen inay ka faa'iidaystaan wehellaanta haysata waxa ay cuudka uga garaaceen xadhkaha nacaybka carabta guud ahaan iyo falastiiniyiinta si gaar ah sida ay hay-adaha sirdoonku u yaqaanaan basaasadu ma taqaano mabda'a naxariista dhabahaas ayaa uu ahaa kii ku hoggaamiyey dabinkii sirdoonka waxa aanay taladeedii iyo hoggaankeedii gacanta u saartay saddexdii sarkaal ee sirdoonka Mossad ka socday isla saddexdan sarkaal ayaa u bilaabay tababar aad u heer sarreeya oo la xidhiidha sirdoonka muddo bil iyo 4 maalmood ah ayaa ay gurigeeda dhexdiisa ku barayeen xeeladaha wax loo basaaso iyo weliba hababka kala gedisan ee sawirqaadista jebinta furayaasha sirta iyo qaabka warka loo gudbiyo waxa kale oo la baray noocyada hubka iyo sida ugu habboon ee ay ammaankeeda shakhsiga ah u sugi karto waxaa la baray sida filimada loo diyaariyo sida looga baxsado cid kugu daba jirta raadgadashada sida loo adeegsado baastooladda intaas laguma daynin ee ruugcadda Israa'iili ah oo ku xeel dheer cilmi nafsiga ayaa Israa'iil looga keenay in uu siiyo tababaro dheeraad ah waxa uu siiyey tababar xoojinaya xasuusteeda maskaxdeedana u diyaarinaya in ay si waafi ah u xasuusato waxyaabo ay si kedis ah u aragtay ama si sibiq ah u dhaafay inta la daawadsiiyo filim ayaa marka uu dhammaado laga dalban jiray in ay ka jawaabto su'aalo ku saabsan dhacdooyinka iyo muuqaalada ku soo maray filimka imise koob ayaa dul saarnaa miiska cuntada sheeg midabka daahiyadii daaqadda ku xidhnaa imise ayaa ay ahayd tirada kaabadaha salaanku waxaa lagu tababaray in ay maskaxdeeda marmarka qaarkood ku qasbi karto inay soo celiso xasuusta wax ay mar hore ilowday bilowgii hore ee tababarkaba waxa ay muujisay maskax badni iyo faham dheeraad ah oo aad u soo jiitay xeeldheerayaashii ku mashquulsanaa tababarkeeda aani Moshe ama Amiina al-Mufti ka doonto ugu yeer oo waxaa laga dareemayay colaadda iyo sida ay uga go'an tahay in ay aarsato wax kasta oo xitaa aan suurtogal ahayna ay samayso si ay ugu aarto ninkeedii yuhuudiga ahaa ee Moshe oo loo malaynayo in uu ku dhintay diyaarad uu waday oo ay soo rideen ciidamada cirka ee dalka Suuriya Amiina waxa ay sheegtay in si ay u muujiso una caddayso jacaylka ay u qabtay Moshe ay jeclaan doonto colaad kasta oo isirka carbeed ku liddi ah si hagarlaan ahna uga shaqayn doonto xoojinta colaadda ay yuhuudu u qabto carabta waxa ay sheegi jirtay in ay habeenkii ku riyooto Moshe oo buuraleyda Joolaan ku dhex silcaya dhar jeexan xidhan gadhkii ku baxay indhuna dar xumo awgeed meel dheer ka soo jeesteen oo uu ku dhawaaqayo ibadbaadi aaniyey Amiina ibadbaadi xabiibi waxa ay ku andacootay in ay ku riyoon jirtay marmarka qaarkood Moshe oo inta uu hilibkiisii googay jiirku waslad u cunayo riyooyinkaasi waxa ay ka mid ahaayeen sababaha laabteeda ku sii huriyey xiisaha ay u qabto in ay raadiso Moshe iyo in ay ka argoosato kuwa loo tirinayo in ay dileen oo ah isla kuwii ay ku eedeynaysay in ay sabab u ahaayeen in mustaqbalkeedii inannimo burburo waa carab oo falastiinigii ay jeclayd iyo suuriyaanka saygeeda dilay yihiin labada tiir cadaawadda ay u qabtaa ku dhisan tahay ee markii ay dhammaysatay howlihii tababar waxaa loo diray shaqadii u horraysay waxa ay timi mar labaad magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan safarkeeda markani muu ahayn sida kii hore oo kale mid ay ku doonayso in ay xog ka hesho ninkeedii la waayay laakiin waxa ay u socotay in ay u soo aarto hawsha loo soo diray waxa ay ahayd in ay xog dheeraad ah ka soo ururiso mas'uuliyiinta iyo madaxda sare ee ururada Falastiiniyiinta iyo ragga muuqda ee kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ee fadhigoodu yahay magaalada Beirut jabhadaha Falastiiniyiinta ee Israa'iil kula jira halganka ayaa saldhigyo militari iyo xafiisyo muhiim ah oo madaxdoodu ku shaqayso ku lahaa dalka Lubnaan waxaa laga rabay in ay wax badan ka soo ogaato goobaha ay ku kulmaan iyo xarumaha ay degan yihiin mas'uuliyiintani waxaa laga rabay in ay xog dheeraad ah ka keento jidadka ay Israa'iil ka galaan kooxaha naftood hurayaasha ah ee ka imaanaya Lubnaan si ay gudaha Israa'iil howlgallo uga fuliyaan
waxaa kale oo laga rabay in ay soo tabiso tilmaamaha juqraafi ee godadka iyo goobaha ay hubka ku kaydsadaan Falastiiniyiintu, xirfadaha ay dagaalka iyo ismiidaaminta u adeegsadaan. Casuumaddii fusuqa. Amiina waxa ay magaalada Beirut ka kiraysatay guri ku yaala badda xeeligeeda oo ah deegaanada ugu quruxda badan magaalada. waa guri hawo badan mar kasta oo barxaddiisa sare la istaagana naftu ku qaboobayso bacaadka nadiifta ah ee mawjadaha baddu garaacayaan. Haddii aragga la sii yara daayana waxa ay indhu ka dhammaan kari waayeen muuqaalka quruxda badan ee buluuga cirka u eeg ee badda dhexe Mediteraneanka. guriga waxa aad ugu dhowaa maqaaxida La Dolce Vita oo ah farac ka mid ah maqaaxi Talyaani ah oo caalamiya. maqaaxidan waxaa isugu imaan jiray siyaasiyiinta, fanaaniinta, maalqabeenka, aqoon-yahanka iyo guud ahaan dadka lagu tiriyo labeenta bulshada iyo sida oo kale dalxiisayaasha iyo basaasiinta. waxaa keliya ee bilowgii dhibaatada ku noqday waxa uu ahaa qadkii taleefanka gurigan ay kiraysatay oo cillad ka bixi waayey. markii ay dhowr jeer la xidhiidhay shirkadda taleefannadana waxaa loo sheegay in khadadka shirkadda ee deegaanka ay degganayd uu leeyahay cillado ku soo kordhay muddooyinkaas oo shaqo dib u habayn dhinaca shabakadda ah shirkaddu wadday. waxa ay u tagtay Khadiija Sahraan, gabadhii baayac mushtarka ahayd ee ay safarkeedii hore ee Lubnaan diyaaradda isku soo barteen. waxa aanay ka dalbatay haddii ay cid ka garanayso shirkadda taleefannada in ay ula hadasho si loogu hagaajiyo khadka taleefanka ee ka xun iyo in loo furo khadka dibadda. nasiib wanaag Khadiija waxa ay u sheegtay in ay si fiican isu garanayaan nin ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda taleefannada, aadna ay ugu hanweyn tahay in uu wax badan arrintan kala qabanayo. Khadiiji waxa ay isbartay mas'uulkan ka tirsanaa shirkadda taleefannada oo magaciisu ahaa Manuel Casaaf iyo Amiina Al-Mufti. Casaaf oo ku socda codsiga Khadiija ee ahaa in uu gabadhaas oo saaxiibadeed ah caawiyo ayaa guriga ku booqday. waxa uu u sheegay sababtii cilladda taleefankeeda haysatay iyo in ay shirkaddu markaas gacanta ku haysay dib u hagaajinteeda, isaga oo si gaar ahna ugu bishaareeyey in uu iyada darteed sii kordhinayo dadaalka awalba socday ee dhibaatadan lagu xallinayay. Amiina maalintaas waxa ay Casaaf tustay soo dhoweyn badan oo xitaa damacgelini ay ku jirto. waxa kale oo ay siisay 50 liire lacagta Lubnaan oo ay ugu sheegtay hadyad. habdhaqanka uu Casaaf kala kulmay gabadhani waxa uu ku abuuray dareen gaar ah oo lur ku kiciyey qalbigiisa. marka horeba haweenka wax loo saaray. waxa uu naftiisa ku hambaliyeeyey in uu helay gabadhii abidba uu ku riyoonayay oo qurux, aqoon, jajabnaan iyo lacagba isku darsatay. waxaase uu ka warlaa in go'aanka Amiina yahay in ay siiso adduun iyo xitaa sharafteeda, laakiin beddel ay ka rabto baadigoobkii dhalanteedka. waxaa sidii caadiga ahayd u socda qorshihii uu Mooshe ku imanayay Israa'iil oo ahaa in uu ku biiro ciidanka cirka ee Israa'iil. Mooshe waxa uu gaadhay darajada korneyl duuliye militari ah oo ka tirsan ciidamada cirka ee Israa'iil. dabayaaqadii sanadkii 1973 Mooshe diyaarad uu waday oo nooceedu ahaa Skyhawk ayaa howlgallo sahamin ah loogu diray hawada dalka Suuriya, laakiin duulimaadkiisii koowaadba ciidamada cirka ee dalka Suuriya ayaa ku guulaystay in ay soo ridaan diyaaraddaas. Mooshe shilkan ayaa raq iyo ruux meel uu ku dambeeyey lagu waayey, dalka Suuriyana uu ka gaabsaday in uu sheego waxa uu ka og yahay nolol iyo geeri. warka ay ciidamada Suuriya ka baahiyeen dhacdadani waxa uu ku koobnaa in diyaaraddaas ay qarxiyeen iyada oo gudaha ugu jirta hawada dalkooda. Amiina waxa ay rumaysan kari weyday warkii diyaaraddan, waxa ay gashay xaalad nafsi ah iyo khalkhal u ekaysiiyey qof aan maskax ahaan caafimaad qabin. maalmo uu waaga murugo iyo oohin ugu beriyo uu gabalku ugu dhaco ayaa u kowsaday. markii ay xaaladdeedu ka soo rayn weyday waxaa la geeyey xarun lagu daweeyo xaaladaha nafsiga ah iyo xanuunnada maskaxda oo ku yaala magaalada Rishon LeZion ayaa caafimaad ahaan loo dhigay. waxaa ku dhacay cudur nafsi ah oo ka xidhay hadalkii, ama aynu nidhaahno shoog si ku meel gaadh ah u aamusiyey. waxa ay jiiftay qol u gaar ah oo xaruntan caafimaad ka tirsan, halkaas oo dhakhaatiirtu ay si gaar ah xaaladdeeda ugu dabiibayeen. markii uu muddo bil iyo badh ah xaalkeedu sidan ahaa ayaa ay Amiina heshay waxtarkii dawooyinka. waxaa dib ugu furmay hadalkii iyo xusuustii la xidhiidhay waxa dhacay. markiiba waxa ay bilowday muran cusub oo ay ku andacoonayso in ay ka shakisan tahay runnimada warka Suuriya ee sheegaya in diyaaraddaas oo duuliyihii saaran yahay ay qarxiyeen iyaga oo aan ka warramayn geeri iyo nolol halka uu ku dambeeyey duuliyuhu. waxa ay ku dooday in ninkeedii Mooshe uu ahaa duuliye aad u xirfad badan, tababarro heerkoodu sarreeyo oo dhinaca duulimaadyada militariga ahna uu qaatay, sidaa awgeed aan la diidi karin suurtagalnimada in uu ka booday diyaaraddani intii aanay burburin. waxa ay sheegtay in ay qabto dareen ah in uu weli nool yahay, kuna gabanayo dhul beereedyada iyo miyiga u dhexeeya Suuriya iyo Israa'iil ama ku yaala gudaha Suuriya. waxaa fikraddan u sheegtay mas'uuliyiintii Yuhuudda ee arrintani khusaysay, iyada oo ku doodaysa in Mooshe uu yahay geesi intii karaan aadame ah isbadbaadin og.
markii ay ka soo raysay waxaa dib loogu celiyey gurigeeda oo ay ku haysay gabadh kalkaaliso caafimaad ah oo ay dawladdu ku mushaharsiinaysay daryeelka Amiina. habeen iyo maalinba waxa ay ku hamiyi jirtay ninkeeda maqan, waxaana la arki jiray iyada oo isla maqan inta ay isaga ka fikirayso ku hadlaysa erayo cod sare ah oo qof kasta oo u dhowi maqli karo. waxaa tobannaan jeer sii labalaabantay cadhadii ay horeba ugu qabtay carabta oo ay u arkaysay in ay mar walba yihiin kuwa madoobeeya bidhaan kasta oo ka soo ifta mustaqbalkeeda. waxaa soo food saartay quus kale oo ku abuurantay markii ay is aragtay in mar labaad ay ku dhacday god madow iyo in ay beenowday riyadeedii ahayd in ay mar uun carab ka fogaan doonto. Urdun iyo Usteri ayaa ay uga timi carab iyada oo filaysa in ay haatan Israa'iil ka bilaabi doonto nolol xasiloon. laakiin nabarkan aanay ka bogsan karin ee warwarka weyn ku hayay waxa uu ahaa runta ay og tahay ee ah in Mooshe oo la waayaa ay ka dhigantay mustaqbalkeedii oo gabal u dumay, ma ay waayin oo keliya saygeedii ay jeclayd, balse waxaa dumay nolosheedii oo dhan. waxaa wehel u noqday ciil baday in ay marar badan ku hamido aargoosi aanay haddana maskaxdeedu sawiran karayn sida ay u fulin karto iyo halka ay ka bilaabi karto midna. waa ciirsi la'aan cidda ku xeerani ay tahay dad aanay dhaqankooda, caadooyinkooda iyo afkooda midna aqoonin. inkasta oo ay ahayd in ay nafteeda ku canaanato sababta halkaas dhigtay, eersatana Yuhuudiga ay guursatay iyo haddana go'aankeedii ku qasbay in ay u guuraan Israa'iil, sidaas ma ay yeeli jirin ee si badheedh ah ayaa ay eedda waxa ku dhacay oo dhan ugu leexinaysay carabta. muddo markii laga warlaa Mooshe waxa ay Amiina ka codsatay mas'uuliyiinta Yuhuudda ee arrintani qusaysay in ay u oggolaadaan safar ay ku tagto Beyruut iyo Dimashq, caasimadaha dalalka Lubnaan iyo Suuriya sida ay u kala horeeyaan si ay u raadgoobto saygeeda bal in ay geeri iyo nolol mid uun kaga warhesho. Amiina iyada oo sidata baasaboorkeedii cusbaa ee Israa'iiliga ahaa ayaa ay dib ugu noqotay magaaladii Fiyeena ee dalka Usteri. waxa uu ahaa safar ay u oggolaadeen mas'uuliyiinta sirdoonka iyo ammaanka ee Yuhuuddu. Fiyeena waxa ay ugu tagtay qoyskii Mooshe oo aad ugu murugaysan geerida inankooda. dhowr maalmood ayaana ay ku nagaatay si ay qoyska ula wadaagto tacsida. maalmo murugo iyo tacsiyeed oo aad u xanuun badan ayaa ay qoyska la qaadatay ka hor intii aanay dib ula soo bixin baasaboorkeedii asalka ahaa ee Urdun si uu ugu fududeeyo in ay u dhoofto dalalka Lubnaan iyo Suuriya. waa markii ugu horraysay ee aragto magaalada Beyruut. waxa ay safarkan isku sii barteen gabadh magaceedu ahaa Khadiija Sahraan oo qudheeduna ku sii jeeday Lubnaan. Khadiija waxa ay ahayd Lubnaaniyad isirkeedu uu Urdun ka soo jeedo. waxa ay ahayd baayac mushtar meherad ganacsi oo aad u weyn ku leh magaalada Beyruut. Khadiija waxa ay Amiina magaalada Beyruut uga heshay guri yar oo ku yaala xaafadda Caynu Rumaanah ee magaalada Beyruut. xaafadan dadka degan waxaa u badnaa Falastiiniyiin, sidaa awgeed waxa ay ahayd goob laga heli karo xogo badan oo la xidhiidha halganka carabta ee Israa'iil ka dhanka ahaa. gurigaas ayaa ay kiraysatay waxa aanay bilowday dadaalkeedii ay ku raadinaysay warar la xidhiidha saygeeda. weliba Beyruut oo keliya war raadinteeda kuma ay koobin ee waxa ay si joogto ah ugu safri jirtay magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya si ay halkaasna uga raadiso warka duuliyihii Yuhuudiga ahaa ee ay wada joogeen. magaalada Beyruut oo uu joogitaankeedu u badnaa marka ay firaaqada tahay waxa ay tegi jirtay meherada ganacsiga dharka ee saaxiibadeed Khadiijka ku lahayd magaalada. waxa aanay ka iibsatay dhar aad u badan oo qiimahoodu aad u sarreeyo. muddo ay Amiina joogtay magaalada Beyruut waxa ay martay dariiq kasta oo ay filan karaysay in ay ku helayso xog ku saabsan ninkeedii. sida oo kale waxa ay dadaal badan u gashay in ay war ka hesho dadka ku dhaqan magaalada Dimashq oo ay dhowr jeer safarro qarsoodi ah ku tagtay. nasiib darro se dadaalladadeedu waxa ay dhammaantood ku dhammaadeen faramadnaan. waxa aanay aakhirkii gaadhay in ay ku qanacday in Mooshe uu dhintay, iyada oo quustaas taagan ayaana ay dib ugu soo socdaashay magaalada Fiyeena ee caasimadda dalka Usteri. murugo hor leh iyo wehel la'aan ayaa u bilowday. waxa ay weyday cid ay xitaa garowshiye uga hesho uurkutaallada ay ku abuurtay geerida u soo hoyatay, marka laga reebo sawirrada Mooshe iyo wixii ay hadba u aragto in uu raadkiisii yahay oo ay laabta gashan jirtay. bil ku dhowaad markii ay joogtay Fiyeena waxaa bilowday wejigii labaad ee nolosheeda. dawanka taleefanka qolkeeda yaalay ayaa goor habeen badh ah hurdada ka salaliyey Amiina. haddii ay haabasho dhigta kula haleeshay sameecaddii taleefankana waxaa kaga soo baxay codka nin u sheegtay in uu ka mid yahay mas'uuliyiinta ammaanka ee Israa'iil. bilowgii may garan codkiisa, laakiin markii uu xasuusiyey magaciisa iyo tilmaamihiisa waxa ay garatay in uu ka mid ahaa raggii ay kulmeen, gaar ahaan kuwii muddada ku waaninayay in aanay u safrin Lubnaan iyo dhulka carabta. waxa uu si guud uga waraystay xaaladdeeda iyo xaaladda qoyska Mooshe ka dhashay. intii aanu nabadgeliyeyna waxa uu u sheegay in ay u iman doonaan 3 mas'uul oo ay Israa'iil u soo dirtay.
maalintii xigtayna waxaa amiina goor barqo ah guriga ugu yimi 3 nin oo ay markiiba garatay in ay yihiin saraakiishii taleefanka looga soo sheegay dhaxalka ay gaarka u heshay iyo lacag magdhow ah oo ay dowladda yuhuuddu ka siisay ninkeedii Mooshe waxa ay isku noqotay lacag ka badan nus milyuun dollarka Maraykanka ah waxa ay sidoo kale ka heshay dowladda Israa'iil guri aad u qurux badan oo ku yaala magaalada Rishon LeZion oo ah magaalada afraad ee ugu weyn Israa'iil waxa kale oo ay saraakiishani u sheegeen in dowladda Israa'iil ay sugidda amnigeeda qaadayso sida awgeed loo samayn doono ilaalo fiican oo amnigeeda sugta raggan la kulmay Amiina waxa ay si badheedh ah ugu sheegeen marka ay hawshaas u qabtaan waxa ay tahay abaalcelinta laga rabaa waxa aanu ka rabnaa in aad nagala shaqayso danta dalkaaga Israa'iil oo dabcan adigana dantaada qofeed ah ayaa si kooban loogu sheegay iyada oo weliba si dadban loogu muujiyay in soo jeedintani ay tahay codsi awoodda amarka oo kale leh oo ay qasab tahay in la fuliyaa waxa aanu ka doonaynaa in arrinkan basaasnimada aad si bilaa waabasho ah u aqbasho ayaa ay saraakiishan Mossad ku yidhaahdeen marka lagu eego indhaha sirdoonka Amiina waa macdan qaali ah oo aan lacag lagu qiimayn karin waa gabadh Carbeed oo dalkeedii iyo dadkeediiba weyday colaad xoogana u qabta waxa ay hadda ku jirtaa xaalad nafsi ah oo aad u liidata waxaana ku xeeran cabsi badan ma haysato hoy ay og tahay in ay ku badbaadi karto oo aan ahayn Israa'iil intaas oo dhammi waa sababo ay u aamini karaan in aanay diidayn in ay la shaqayso iyo in ay si hagar la'aan ah uga soo bixi doonto hawsha loo diro sirdoonka Israa'iil oo lagu yaqaano xirfad aad u sarreysa diyaar uma ay ahayn in uu dayaco fursad kasta oo uu sahlaysa in ay Amiina al-Mufti noqoto basaasad u adeegta 3 nin si ay nafsiyaan u dilaan uguna sii kordhiyaan nacaybka ay u qabtay carabta waxa ay xasuusiyeen xaaladdeeda nololeed ee ay hadda ku jirto iyo cabsida mustaqbalka ku xeeran waxa ay geliyeen shucuur ah in maanta cidda ugu nacab dunidu ay tahay carab oo sirdoonkooda oo dhammi ku howlan yihiin sidii ay u dili lahaayeen ama u qafaalan lahaayeen si qarsoodi loogu celiyo Urdun cidda keliya ee maanta ammaanka iyo nolosha la doonaysaana ay tahay Yuhuudda waxa ay aad ugu celceliyeen in iyada iyo carab aanay waxba ka dhaxayn marka koowaad maaha isku asal oo dabcan iyadu asal ahaan carab ma aha oo waxa ay ka soo jeedaa qowmiyadda Sharakis marka labaadna waxa ay u sheegeen in carabi ay tahay cidda dishay ninkeedii ay jeclayd oo maanta uga baahan in ay u aarto waxa ay u aragtaa xogtani in ay tahay biyo kama dhibcaan xeeldheerayaasha Mossad iyaga oo kaashanaya basaasiintooda ka howlgala gudaha Lubnaan ayaa ay si qoto dheer u baadheen xogta gaarka ah ee ninkan ay Amiina soo sheegtay jawaab dhaqso ahayd oo ay ku soo celiyeenna waxa ay noqotay in ay sii wado xidhiidhka ninkaas oo weliba ay sida ugu dhaqsaha badan qalbiisa u hanato mas'uuliyiinta Mossad waxa ay Amiina dareensiiyeen in ninkani uu wax badan ka caawin karo shaqada basaasnimo ee ay u joogto Beirut gaar ahaan in uu u fududayn karo helidda liisaska sirta ah ee ay ku qoran yihiin magacyada dadka xubnaha ka ah xafiiska ammaanka iyo xog raadinta ee Falastiiniyiinta sida lagu sheegay jawaabta Mossad Hayek waxa kale oo uu Amiina ka caawin karaa in ay hesho taleefanada gaarka ah ee mas'uuliyiinta sare gaar ahaan Yaasir Carafaat iyo Cali Salaama ugu dambayntana waxa uu ku hagi karaa in ay isbartaan Yaasir Carafaat iyo Cali Xasan Salaama oo ah qofka ugu muhiimsan ee ay tahay in ay xogtiisa raadiso Cali Xasan Salaama waxa uu madax ka ahaa urur sirdoonka iyo gaarka ah fuliya oo si dadban u hoos tagayay sirdoonka guud ee Falastiiniyiinta waxa aanu ahaa qofka koowaad ee ay Israa'iil ugu raadinta badan tahay Lubnaan oo keliya ma aha ee dhammaan xafiisyada iyo basaasiinta Israa'iil ee dunida daafaheeda ku filqani waxa ay ku amranayeen in meel kasta oo ay dunida ka joogaan ay raadiyaan xog la xidhiidha Salaama oo sirdoonka Yuhuuddu uu ula baxay Amiirka Cas amarka ah in geeri iyo nolol mid uun lagu soo helaana ka yimid halka ugu sarreysa dowladda Israa'iil oo ah haweenaydii xilligaas ra'iisul wasaaraha ahayd oo magaceedu ahaa Golda Meir Cali Xasan Salaama waxa uu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii ay Falastiiniyiintu dalka Jarmalka ku dileen 11 ciyaartooy oo Israa'iil uga qaybgalayay ciyaarihii Olombikada ee wakhtigaas ka qabsoomayay Jarmalka Maaruun damaciisu waxa uu ahaa in uu mar uun gacan la gaadho hilbaha maan qaaday ee hor yaalla laakiin Amiina intaa waa ay ka fogeyd xumaan in ay u marto ujeeddadeeduna waxa ay ahayd dhaqankeeda iyo xeeladda ugu weyn ee lagu soo tababaray markii ay dhowr kulan isugu yimaadeen ee ay isbarashadoodii sii xoogaysatay waxa ay ku guulaysatay in ay Maaruun ka heshay taleefanada mas'uuliyiinta sare ee ururada Falastiiniyiinta ee xaruntoodu tahay Beirut waxa ay sida oo kale ka heshay xog badan oo ku saabsan goobaha ay ku kulmaan mas'uuliyiintani xafiisyadooda iyo guryaha ay degan yihiin
amiina oo markii dambe isticmaali jirtay sanduuqa boosta oo sir ah waxa ay si sir ah ula xidhiidhaysay mas-uuliyiintii sirdoonka ee ka sarraysay iyada oo si joogto ah ugu diraysay hadba halka uu xaal u marayo iyo wixii ay xog hesho islamarkaana ka qaadanaysay wixii talo iyo amarro cusub ah ee hawsheeda khuseeya amiina dalabka ay sirdoonka yuhuuddu ku adkaynayeen waxa uu ahaa in ay soo hesho liiska sirta ah ee magacyada xubnaha sirdoonka falastiiniyiinta dunida ugu kala maqan gaar ahaan qaaradda yurub waxa ay u sheegeen sida keliya ee xogta loo diray ku heli kartaa in ay tahay dhexgalka xafiisyada ururka xoraynta falastiin guud ahaan iyo si gaar ah xafiiska yasser carafaat ahaa oo hogaamiyaha ururkan xoraynta falastiiniyiinta ee PLO iyo xafiiska cali xasan salaama waad ku mahadsan tahay inaad kanaalkan soo booqatay oo aad dhammaysatay qaybtii labaad ee basaasadii carbeed ee Mossad ugu caansanay Amiina al-Mufti la soco dhowaan qaybta saddexaad oo xiiso badan kana mid noqo asxaabta buug maqal nabadeed